raagacilla aniga tan iyo waagaan caqliyeystaan gudoomiye maqli jiray dadkeena xamar iyo xaradheer iskaga gudbi jireen marka de sheekada igu badan oo maqla waxay ahaa jirtay raagacilla la rugaahe ma rabtaa rooti iyo caano marka de arintaas waxay ahayd arrin aan xasuusnaa markastoo raagacilla maqlo oraahdaasa igu soo dhacaysay intaa kadib waxaan isleeyahay raagacilla waa ka nasiib badan tahay meelaha kale maadaama hadda waxaan dhageysanayay baahiyihii aad sheegtay waxaad sheegtay dee waan u jeedaa inay magaaladii mugdito nalan u baahannahay ceelan u baahannahay waxaasaan u baahannahay marka waa nasiib badantihiin markii xildhibaan carab uu xildhibaanka idiin noqday aniga maalintaan soo baxaynay waxaan xaadir u ahaa isagoo kala hadlaya prime ministerka dalka raagacilla iyo nalal loo rabo isna waa aqbalay horena prime ministerka wuxuu nagala shaqeeyey in cadaado la geeyo solar systemkaas marka dee xildhibaan kasii fakaraya baahidiinii oo xilliga adinka u sheegaysaan isaga uuba ka soo shaqeeyaa haysataan taa dee waa nasiib aad dadka dheertihiin nasiibka labaad oo aad dadka dheertihiin waxaa waaye maamulkiinii Hirshabeelle sideedaba dowlad goboleedyada haddaysan ku xirnayn dowladda federaalka wax badan uma hagaagayaan marka dee waa ogtihiin oo dowlad goboleedyadii hadda kuwana waa hormareen oo dekeday leeyihiin kuwana waa kuwa cusub oo hadda dhashay dhaqaale ku filan oo ayaga haystaan marka baahidooda koowaad ay u baahan yihiin oo inay dowladdu ku xirnaadaan CIC marka isku timid annaga keenii galmudug kuwaas oo la lumay waxna ma hayo keenii waxaa u malaysaa inuu dowladdu heshiis la yahay marka waxaan rajaynayaa qorshe horumarineed oo dowladda xaggeeda ka yimaadna inay heli doonto dhinacaana raagacilla nasiibkaasay ku haysataa dhinaca saddexaadna waa shaqo adinka aad qabsateen oo waaba mudantihiinba dhulkan waa dhul amniya waa dhul hay-adihii ay imaan karaan waa dhul dadkii raba inay wax idin qabtaan si sahlan ay u imaan karaan hadda annagaa fadhino oo barxaddaasaan fadhinaa arrintaasna waa arrin aad adinka shaqaysateenoo mudnaana u leedihiin marka wixii horumara in laydin soo gaarsiiyo waxaan rabaa marka inaan baaq u diro hay-adaha caalamiga iyo dowladdaba aan u sheego dhulkan waa amni dadkiisa wixii gurmad iyo gargaarahay u baahan yihiin ha la soo gaarsiiyo waxaan rabaa caawa inaan hoosta ka xariiqo annaga maskaxdeenna waxaan u malaysaa dadaa control waxaan nalaga dhaadhiciyey deegaanada shabaabaa haysta waxaan u haysanaaba xamar haddii laga baxo dhul shabaab in la gelayo maantay isku celcelis socodkeennii xalay aan soo bilownay ilaa maanta waa soconnaa meeqa kilomitir waa isku celcelis 300 rafli socod ahaan samaynayn wax shabaab aan aragna ma leh waxaan shacabna raba ahayn ma aanan arag waxaan ciidan dowladda ahayn ma aanan arag marka horta maskaxda ha laga saaro dhulka shabaab haysta dhulka shacabka haysta shacabkana dowladda ku xiran yihiin Hirshabeelle ku xiran yihiin dowladda federaalka ay ku xiran yihiin ha la soo baxo kullu aniga inta aan hubo dhinaca bari hadii loo soo baxo ilaa xaradheer waa loo dhawaa karaa dhinacyada kale waa yeelkeeda ama la tigin waa maasantiin marka waxaan ku soo dhaweynaa xildhibaan carabo gudoomiye waxaan dhiiray afdoona xildhibaankii ay gala hormaray ani waxaan rabay inaan markaan imaan doono aan si surprise aan u keeno baaladaasi laakiin hadda waa lagu waajibiyo oo xildhibaankii hortiina ka qiray taa anaga waa ka shaqeynayna gudoomiye anaguna hadaan aqoon aan isku lahayn laakiin aan ognahay deegaankan inuu deegaankeena yahay oo dad nabadna yahay waxaa ilaahay maadiisa dhulka intaa leeg oo nabadda ka jirto nabadda intaa leeg ka jirto inaan caawa aan ognahay xilli alla xilliga u baahan inaan imaan karno ilaahay ma haddaas ku leh waxaa kaloo ka mahad celinaa dadkii ka soo shaqeeyay deegaanadan maamulka Hirshabeelle dowladda dhexe xildhibaanada shacabka waxaa leeyahay mahadsantiin waxaan u baahannahay marka gudoomiye degmadan saan ma sii ahaan karto waxaa waajiba in wax laga qabto dhul saan nabad u ah saan u qurux badan waxaan u baahannahay maalinta aan ku daalno Muqdisho ama hooleena shaqo ku daalno inaan inta u soo dalxiis tagno nolol qabto bandhig faneedada nolol qabto wax allaaliya dood cilmiyeedada la geeyo xeebaha quruxda badan leh gudoomiye taa u baahannahay taana waxay ka suura geli kartaa dadka ka soo jeeda deegaan walbo dowladdu waxay u baahan tahay waa diyaar inay wax kasta la qabato inay dhisto waa diyaar laakiin waxay u baahan tahay dadkii ka dooni lahaa iyo wixii bilaabi lahaa marka adiga wax bilaabato aad wax fiican ku dhaqaaqdo dowladduna waa imaan waan ku taageeray marka wax ka dalbatana waa diyaar la tahay waxaan u jeedinaa mas'uuliyiinta ee ka soo jeeda deegaanada inta la eg ha ahaadaan xildhibaano
ha ahaadaan siyaasiyiin hore siyaasiyiin hadda ha ahaadaan ganacsatada ilaahay xoolaha siiye waxaan ugu baaqayaa inay deegaanadooda maalgashtaan dhisaan kana shaqeeyaan danta guud waxaan leeyahay siyaasadda waa halkeedii laakiin danta guud ha loo soo jeesto ma ahan xilli aan ka shaqeyno siyaasad ma ahan xilli aan aragti duunaasho ka kala shaqeyno ma ahan xilli aan kuraas iyo waxa loo joogo isku qabsano waxaa la joogaa xilliga horumarka cid allaale ciddii siyaasad ku mashquul leedahay ku mashquulsho horumarka kadib aan isku qabsan karnaa dadkeenni baa la-aanaya dadkeenni gudcarkaas joogo dadkeenni mataqaanaa baaba'san wadooyinkii arafa isbitaaladii gabadhii laga soo qaado xaamilada ah jidka ayay ku dhimataa 180 kilomitir ma soo socon karto deegaan dhanoo leh in ka badan 20 dan guud oo dayactiran oo shaqeynaa haysana marka waxaan leeyahay dadweynaha waa nagula xisaabtama mas'uuliyadda ahayno ilaahay aan kaga cabsano wixii mataqaanaa deegaanadeena ama dadka Soomaaliyeed guud ahaan u baahan yihiin aan ka shaqeyno baaqaas waxa u diray mas'uuliyadda xildhibaanada aan u soo jeesano qurbo joogta sidoo kale waxaa leeyahay waxa ka shaqeysin oo ognahay khayr Allah idinka siiyo waxaan rabnaa inaad laba laabtaan inaad mataqaanaa u soo jeesataan annaga waxaan naga go'an inaan deegaanadan iyo deegaanada Soomaaliyeed in amniga laga dhigo lagana shaqeeyo horumarka safarkan socdaalkan wuxuu ahay horumarka iyo dib u xoreynta waxaan rajaynaynaa inaan magaaladii aan ku noqon doono gudoomiye dawladdiina wax allaale wixii aad ka dalbatay ayadoo maamulkaaga dawladda Hirshabeelle lagala shaqeynayo horumarintaas loola ballan qaaday annagana waxaa nagu waajibay inaan ka shaqeyno arrintaas waa mahadsantihiin dadweynaha mataqaanaa sidii aad noo soo dhaweyseen ma aan iloobi doono